inkastoo maanta magaalada Gaza ay ka dhacday sii deynta maxaabiistii Israa'iiliyiinta dhanka Israa'iil laga soo daayay maxaabiista Falastiin xabajoojintiina weli ay sii socoto haddana waxaa jira cabsi aad u xooggan oo la xiriirta in dagaalku dib u bilowdo maanta waxaa laga sii daayay magaalada Gaza saddex ka mid ah maxaabiista Israa'iil halka Israa'iil laga soo deynayo maxaabiis Falastiiniyiin oo gaaraysa 369 maxaabiista la sii deynayo xabsida Israa'iil laga sii deynayo ayaa isugu jira maxaabiis waqti dheer ku xukunaa iyo kuwa dhawaan laga xiray magaalada Gaza intii dagaaladu ay socdeen 15 bilood oo magaalada Gaza uu dagaal ka socday maxaabiistii laga xiray 333 ka mid ah ayaa maanta la sii deynaya sidoo kale tan waxaa ku jira maxaabiista la sii deynayo 36 qofood oo ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta oo xabsi daayinka hore Israa'iil ay ugu xukuntay magaalada Gaza wacdarii Xamaas iyo Islaamka Jihaad ayaa weli ka sii socda iyagoo sii daayay saddex ka mid ah maxaabiista Israa'iiliyiinta ay gacanta ku hayeen kuwaas oo bisha cas ay ka qaaday Gaza kulan laabtay Israa'iil gudaheeda xabajoojinta jirta iyo maxaabiista la iswadaarsanayo waxaa dhinac soconaya cabsi kaleeto oo la xiriirta in dagaalku bilowdo si looga Donald Trump madaxweynaha Mareykanka hore ugu hanjabay 12 maanta haddii aan la sii deyn dhammaan maxaabiista Israa'iil in dagaalka dib loo bilaabi doono Israa'iilna ay heshiiska isaga bixi doonto heshiiskii hore loo galay cidda damaanad qaaday in heshiiska Israa'iil ay fuli doonto waxay ahayd Mareykanka haddana waxaa muuqata in madaxweynaha Mareykanku uu muujinayo inaanu ku qanacsanayn guud ahaan xabajoojinta iyo qaabka maxaabiista la isku weydaarsanayo oo xaaladdu ay ku soconayso Israa'iil dhankeeda waxaa moodaa inay qaadanayso talooyinka iyo hadallada ka soo yeeraya madaxweynaha dalka Mareykanka Trump meel ay iska dhigtay 15 bilood oo dagaalo ay ka socdeen magaalada Gaza wax kastana ay ku sameeyeen taasina ay u suurtagelin weysay inay qabsadaan magaalada Gaza oo ciidankoodu si dagaal la'aan ah ay ugu sugnaadaan gudaha magaalada dagaalka Gaza muddo ayuu hadda hakad ku jira waxaana sidoo kale soo baxaya guuldarrooyinka ciidanka Israa'iil ay la kulmayeen 15 bilood oo dagaalkaas uu soconayay iyo waxyaabaha horseeday qorshe kasta oo ciidanka Israa'iil ay hore u dejiyeen madaxdooduna ay hormuud ka ahayd waa ay fashilmeen taasna waxay keentay in markii dambe ay qaataan xabajoojintan maxaabiista badan la isku dhaafsanayo wejigan koowaad markii uu dhammaado oo la filayay in 34 maxbuus ay Xamaas iyo Islaamka Jihaad ay sii daayaan kumanaan Falastiiniyiin laga sii daayo xabsiyada Israa'iil waxay ahayd in wejiga labaad loo laabto wadahadalkuna uu sii socdo inta xabajoojintan ay jirto taasna ay keento in maxaabiista kale oo dheeriga hartay la sii daayo wejiga saddexaadna laga wada hadlo qaabka lagu dhisi doono magaalada Gaza oo lagu hagaajin doono dhibaatadii xoogganeyd ee shacabka soo gaartay hadda waxaa muuqata in ciidanka Israa'iil ay markasta jebinayaan xabajoojinta iyagoo ka goos haysta maamulka Trump oo doonaya in dagaalkii dib loo bilaabo 15 bilood wixii la keeni waayay caalamka dhan wuxuu aaminsan yahay inaan la keeni doonin hase ahaatee Trump ayaa markaan doonaya in taladiisa uu tijaabiyo asagoo leh magaalada Gaza waxay la kulmi doontaa iyo Xamaas dhibaato aanay weligood la kulmin waxaana la marin doonaa cadaab adag dadka waxay isweydiinayaan cadaabta la marin doona maxay noqon doontaa maadaama magaaladii dhan hore loo burburiyay meel nool oo magaaladii ka midana aysan jirin dhanka kale waxaa soo baxaya hanjabaadaha kooxaha Xuutiyiinta dhankooda ka soo baxaya oo Israa'iil loogu hanjabayo haddii dagaalka ay dib u bilowdo in ciqaab kale iyaduna ay la kulmi doonto markasta Mareykanka dhibaatada soo gaartay waxay noqon doontaa in hubkiisa iyo taladiisu ay guuldareystaan asaatee dhimashada iyo guuldarrada ugu xooggan iyo dhaqaale burburka wuxuu ku dhici doonaa waa Israa'iil waxaa la arki doonaa saacadaha iyo maalmaha soo socda tillaabooyinka ay qaadaan Israa'iil iyo madaxweynaha Mareykanka oo markasta ku goodinaya in maxaabiista dhammaan haddaan la sii deynin in dhibaato kale ay geysan doonaan in shacabka Gaza laga saari doono magaalada Gaza Mareykankuna uu la wareegi doono